السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات قدي يدبد جوجه وحن شعلها باق قرشو أو أمد الصوماليات وحقران يساهي دمان تود أي لقبان إذن كنا أديقو قرابي دونتان inaan inkaga soo gudbiyo halka kan anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdille wax badan aad iga barateen in aad maqashaan erayadayda iyo hadalkayga waxaan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed Ilaahay baa adduunkaana keenay bini aadan baana nahay wixii nagu xunna inaan garanno wixii nagu saxsanna inaan garanno haddana waxaad moodaa annagu inaaban nahay dad Ilaahay u soo dejiyay kutub quraana oo xaqiina garanaya xaqdarradiina garanaya hase yeeshee isticmaalkii la isticmaalayay iyo dhaqankii lagu dhaqmayay aad moodo xoogaa ciriiri inay galeen waxaana ka weynaaday wax walbaba qabiil dareenka uu leeyahay ayaa kutubkii quraanka ahaa ka weynaaday way habboon tahay in loo soo noqdo asaga qabiilkana inuusan waxba tarin in la ogaado waana seefaha uu ku shaqaysto iyo waramada uu ku shaqaysto shaydaanku iyo ninka sadanadoonka ah iyo ninka xaasidnimada wada iyo ninka ajnabiga u shaqeynaya iyo ninka danaystaha ah oo bini aadan kale lacag uga qaadanaya burburinta iyo qaloocinta danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed caruurtooda haweenkooda odayaashooda dhulkeenna waxa soo dhar inay silic iyo dhibaato weligood ay ku jiraan ayaa arrimahaas oo dhan loo sameynaya shacbiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waa in danaha ummadda Soomaaliyeed wax allaale wixii ka hor imaanaya waa inaad ka hor tagtaan dantiisa nimaan aqoon baa la yiri maraduuga horteeda ayuu dhammaadaa meel walba dhibaato ka jirtaa dibad hadday noqoto gudaha hadday noqoto dadkeenna ayaa silicsan waa in shacbigu dareen wanaagsan oo fiican yeeshaa ninkii ay ka arkaan inuu qalqaloocanayo ay waxaynayaan qabiil yaan loo fiirin qabiil waa midka meesha ina dhigay qabiil waa midka hoogga ina baday waxaanu sheegayaa maamulada markaan taas halka uga baxo maamuladu jid qaldan bay ku socdaan maamuladu jid qaldan bay ku socdaan maamuladu jid qaldan bay ku socdaan waa in madaxda dawladda iyo dastuurka dalka aad ka dambaysaan madax waxaad u tihiin shacbi Soomaaliyeed oo idin doortay oo aad dhex joogtaan anigana si bayaana waxaan leeyahay si cadaana waxaan leeyahay si kalsooni ku jirto waxaan leeyahay idinku shacbiga ummadda Soomaaliyeed uma naxaysaan wixii waxgarada ee dareen leh ee Soomaaliyeed ayaa shacbiga u naxaya waxa weeye shacbiga ayaanu inuu ku kicinaynaa waana noo fududahay Ilaahay baa noo fududeeyay inaan shacbiga inuu ku kicinno carabkana inaan ka dhowrsan wixii ayaga dhibaato ku soo socda wixii ayaga rafaad ku soo socda haddeer bay rafaad ku jiraan haddeer baa sicir barar haystaa haddeer baa colaad haysataa haddeer baa rafaad haystaa haddeer baa nin walbaba doobinaya sidii awrkii ayagoo ay u shaqeynayaan oon ognahay dad ajnabi ah waxaan leenahay si cadaana in la soconaaye maamuladu waa inay toosaan dawladda dhaxana waa inay ku xirtaan
waana inay ka baxaan luuqa iyo laalaabka ay ku jiraan aniga ninna ma carabaabayo laakiin qaladaadka aad samaynaysaan oo dhanba maalin walbaba shaashadda ayaan ka daawanayaa oo ka arkaa nin kastoo waxgaradana sidaasuu u arkaa culimaaudiinka garaadada isimada salaadiinta oo dhan kulli idinkoo isku duuban meel fiican baad wax ku wadaane idinkoo baarlamaanka iyo wax walbaba la kaashanaya iyo shacabka dalka meel fiican ku aadiya dadka cadowga u shaqaynayana naga ilaaliyo naga jira hal la iska jiro madaxda dawladana siriq alla siriqday ku dhacday anaa runta inin sheegaya dhib alla dhib ka gaadhay magaxumada kasta magaxumada gaadhay waa laga soo shaqeeyay waa la soo tabantaabiyey waa la soo hufay waa xeelado isticmaar iyo balaayo ay ka dambayso sidaa darteed intaad qalaysay annagana waa qaybinayna waa inay dhacdaa qur-aankiibaa ina dhex yaalla shacabkii soomaaliyeed oo dhibanaabaa idin dhex yaalla golihii baarlamaanko dastuurkii iyo sharcigii gacanta ku hayaa waddankii jooga culimaaudiinkiibaa jooga indheer garadkiibaa jooga isku xirma oo yaysan dhicin in wax dhibaato ah wax rafaad ah wax kadeed ah ummadda soomaaliyeed mar dambe aysan gaarin aysan taaban iska daa taase inaannu annagu adduunka oo dhan caqli u noqonno garasho u noqonno dareen u noqonno kaca ini leeyahay caqliga ka kaca qalbiga ka kaca niyadda ka kaca bini'aadinimada u kaca isqiimeeya waxa weeye kadeed iyo dhib horaannu u soo aragnay waa inaannu noqonnaa dad sharaf iyo qiimo iyo haybad iyo baawe dadkooda u leh shacabkooda u leh madaxda dawladdana waxaan ka codsanayaa sidaad shacbiga ugu dhex jirteen u kontaroolayseen u baarayseen u ilaalinayseen wax ugu sheegayseen mar walbaba arrintiinna waa inay kor u kacdaa shacabka dhibaatada waa in laga saaraa wixii musuq maasuqa waa in la iska jiraa wixii qabiila waa in la iska jiraa nin kasta oo soomaaliya madaxa u salaaxa wax cuna meel seexda wax kale adduunyadu qiimo kale ma laha magaca iyo haybadda iyo qiimaha ummadda soomaaliyeed leedahay soo saaro sidaasaa la idiin doortay annagana garab iyo gaashaan baan idin siinaynaa diyaar baan idin nahay in kasta oy la eg yihiin dadka waxgaradka ah oo dhan waa in garab taagan yihiin waxaa weeye kuwa joornaalada iyo wariyayaasha meelaha ka hadlaya iyo dadka lagu shaqaysanaya iyo dadka lacag ku qaadanaya duduminta ummadda soomaaliyeedna shaashadan ka daawaraya waa ka arkaa waxaan ku leeyahay adeer wargeysnimadu sidaas ma aha inaad dawladdaada caydo inaad ummadaada caydo inaad dadka isku dirto inaad qabiil ka shaqayso adeer taasu ma aha maas meedyada nidaamkeeda ma aha waad dhunsan tahaa in leeyahay nimanka saas yeelaya dadku waa in la isku xirmaa qabiil Soomaaliya uma rabno Soomaaliya waa Soomaalina Soomaali baa leh inta waa in lagu fikiraa qiimuhuna waa midaas midda ilaahay raali ka yahayna waa midaas waayo waa wa'tasibu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wakaas marka dariiqo marka wax shaydaan ku shaqeynaya waa in shacabka Soomaaliyeed ka kaca ilaahayna hayna ilaaliyo ilaahayna hayna xafido ilaahayna hayna aruuriyo ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda Allah adkeeyo min raas Kambooni ilaa raas Casayr meesha aan wax ka arkayana inta ka arkayso dhanay igu taageera saad u wada culimadoyna sidoo kale u wada maalin walbaba khayr baan isku ognahay waa Axmed Nuur Maxamed Cabdille oo idin leh nabad geliyo New Zealand in kala soo hadlaya ilaahay hayna xafido Soomaaliyeey nabaday